وعن سلامينا اللي بعنا labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee tiradoodu tahay 95 mudane ee maanta kulankan iskugu yimid waxaan rabnaa halkaan inaan ummadda Soomaaliyeed kula wadaagno libaanadan tiradoodu ay tahay 95 mudane ee ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankoodan maanta wuxuu ku saabsanaa inay iska wareystaan marxaladan kala guurka dalku uu galay iyo firaaqa dastuuriga madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday 7 February marxaladaas kala guurka golayaasha baarlamaanka inay iskaga yimaadaan tala ka yeeshaan dalka iyo dadkana laga badbaadiyo firaaqan dastuuriga runtii arrin ugub ah oo dalka aan hore uga soo dhicin waxaan go'aansanay annagoo mudanayaashaas baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal inaan maanta halkaan uga dhawaaqno kutlo baarlamaaniya oo loo bixiyay magaca kutlada badbaadada qaranka si looga badbaadiyo dalka iyo dadkaba marxaladan kala guurka oo galay waxaan dooranay oo kutladu iska dhex dooratay xubno guddiya oo 11 xubnooda oo sida aad arkaysiin hadda hareerahayga taagan sidoo kale waxaan cadeynaynaa halkaan ka cadeynaynaa in mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisa uu dhamaaday oo ku ekaa 7 February sidoo kale waxaan halkaan ka cadeynaynaa wax muddo kordhin la yiraahdo oo loo sameey karo ama loo sameynayo madaxweynaha inaysan jirin sidoo kale waxaan halkaan ka cadeynaynaa xukuumaddu inay tahay xukuumad xilgaarsiina sida ku qoran qodobka 103 ee dastuurka federaalka Soomaaliya shaqada ay qabanaysan ay tahay shaqooyinka caadiga ee wax qaraarada siyaasadeed oo masiirka dalka iyo dadka quseeya aysan xaq u lahayn sida dastuurku tilmaamayaba waxaan sidoo kale halkaan runtii ka cambaaraynaynaa falkii maalin dhaweed oo shalay ahayd golaha shacabka ciidamo dharcada oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda gudaha loo soo geliyay xarunta baarlamaanka iyo hoolka shirarka baarlamaanka oo runtii tilaabo sharci darro xadgudubna ku ah dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka waxaan ugu baaqaynaa guddoonka golaha shacabka una cadeynaynaa inaanan aqbalaynin in gudaha lala soo galo ciidamo aan ahayn kuwa rasmiga ee booliska ee baarlamaanka federaalka ama golaha shacabka uu leeyahay haddii arrintaas soo laabatana runtii waxaan cadeynaynaa inay baarlamaanka naftoodu halis ku jirto laguna qasbanaa doono qof kasta oo mudanayaasha baarlamaanka kamida inuu difaacu nafsi galo oo qolo waliba ay ku soo talagasho mudanayaasha baarlamaanka inay naftooda ka ilaaliyaan ciidamadan sida sharci darrada lagu soo daabulay xarunta golaha shacabka iyo hoolka shirarka ee golaha intaba waxaan sidoo kale runtii cabaaraynaynaa isku dayga maalmihii la soo dhafay la isku dayay in warbaahinta madaxa bannaan la caburiyo loo diido inay gudaha u soo galaan xarunta baarlamaanka tabiyaan waxa halkaas ka socda sidoo kalena ciidamo dharcada inta la keenay xarunta baarlamaanka gudaheeda dhalinyaradii ka socotay warbaahinta mid ay ula hadlayaan sawir ka qaadayaan handadayaan ay leeyihiin waan idin dilaynaa wax la aqbali kara maahan waana arrin ka soo horjeeda shuruucda dalka u yaala iyo xorriyadda oo runtii arrin ugub ku ah iyada ruuxeeda dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidaas daraadeed maadaaba xukuumaddu ay ku fashilantay hirgelinta doorashadii lagu heshiiyay 17 Sebtembar madaxweynuhuna uu ku soo fashilmay in shirkii Dhuusamareeb 4 looga tashanayay aayaha Soomaaliyeed iyo xalinta madmadowgii ama khilaafaadkii ka dhashay heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar ay ku heshiiyeen madaxda qaranka iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka golayaasha baarlamaankuna sida wada jira u ansixiyeen in wixii xilligan ka dambeeya jihaynta dalka jihada uu aadayo iyo badbaadintiisaba ay tahay arrin u taala inay go'aan ka qaataan golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama ay yihiin jihada rasmiga ee metelaysa shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo koobaynaa warmurtiyaadkii waxaan jeclaan lahaa
saaxiibada kale inay kabaan insha Allah aad iyo aad ma xasantay Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier